Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Ku soo dhawaada warkii telefishinka Somali Channel oo idinka imaanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Hargeysa. Warkana waxa halka idinka soo jeedinaya anigu Maxamed Faarax Oomaade. Qodobada ugu doorka rool ee warkayga ku daawan doontaan waxa kamid ah. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa guddi degdeg ah waxa uu saaray shaqaaqadii ka dhacday dharkeyngeeyo ay ku dagaalameen laba beelood oo walaalo ah deegaankaasi. guddidani uu madaxweynuhu saaray ayaa waxay ka kooban yihiin madax ka socota hogaamiye dhaqameedka iyo sidoo kale xubno ka socda golaha guurtida Soomaaliland oo ku biiri doona xubno hore oo halkaasi u sii joogay daminta colaadaasi. wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Aadan Qabo ayaa waxa ay kormeer ku tageen xadka Soomaaliland ay la wadaagto dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Togdheer halkaasi oo ciidamada New Booliska ee dawlad deegaanka Soomaalidu ay dhawaan dad rayida ku laayeen. warbixin dhawaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanku uu yahay wadanka ugu hubdhoofinta badan adduunka. intaasi daawadayaal waa qodobada ugu doorka roon leh warkayagana aad ku daawan doontaan hase ahaatee inta ayna u gelin ku soo dhawaada qadar yar oo adeega bulshada.